muuqaalka guud ee magaalada Boorama halkan hotel Galad leeyahay ayaa bartamaha suuqa magaalada Boorama maanta laga furayaa hotel Stay hotel cusub oo leeyahay hotel Galad oo fooqa oo ku yaala bartamaha suuqa magaalada Boorama ayaa saaka xadhiga uga jiray halkan lagu isku taxaaqay sanadka aqoonyaha iyo bulshada Spainka hotel kan hotel qodro wuxuu ku soo horreeyay magaalada Boorama iyo dadka mafda oo ay dhimanayaan dadka casri ah loo dhisay hotel Galad ayaa saaka markii uu dhisay xadhiga laga jiray حاجة ده بص عمره هذا البحر بس والله زي ما هي مقطعة في يوم مرة الله بسم الله الرحمن الرحيم inay insha Allah dhisaan kuwa kale oo fara badan ay dhisaan oo kan ka sii qurux badan kana insha Allah ujeedadii laga lahaa laga gaaro oo insha Allah lagu barwaaqoobo ayaa Ilaahay ka rajaynaynaa muuqaalka guud ee hotelka cusub ee maanta laga furay magaalada Boorama ayaa laba maalmood ugu dambeysay ka duulay halo sidee ma u gaaray قرر رئيس المجلس الانتقالي الوطني مصطفى عبد الجليل ان هناك استعدادا للعفو عن كسائر القضاء ولكن بشروط وشدد في حديث الجزيره على ان الجميع كلا هوتيل كان لوبني مدير عبد الله محمود دكتور علي سودو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وزمرك هوري سلطانada cilmaadinka marti sharafta ka soo qayb gashay xafladan aad baan muxuu ahay salaamaya assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh runtii waa munaasabad wanaagsan weeye oo muxuu ahay in markii sidan oo kale muxuu ahay mashruuc weyn oo noocaas oo kala la furayo in muxuu ahay daaha laga furayo in muxuu ahay daahfur loo sameeyo oo moogtay la isku yimaado la isku bogaadiyo waa arrin wanaagsan weeye waxaana sidii muxuu ahay Sheekh Xasan Bash sheegay Ilaahay uga baryaa inuu moogtay mid baraka leh oo wanaagsan oo raaga oo markaas Raysamaal inuu noqdo ayaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala uga baryaa runtii waxyaabaha business ku had jeer waxay daboolaan baahi jirta weeye hoteeladu waxay ka mid yihiin marka moogtay dhaqaalaha laga hadlayo waxa la yiraahdaa moogtay waxna waa moogtay wixii silcade ama goods la isticmaalo istihlaakiya waxna waxa weeye waa services weeye waa moogtay in shaqo la isku qabto hoteeladu waxay ka mid yihiin waxyaabaha services ka bixiya oo moogtay baahi dadku ay u baahan yihiin oo qofku moogtay meel uu seexday iyo accommodation wanaagsan u baahan yahay ama inuu muxuu ahaa chief uu helo inuu martidu meel ay moogtay degta ay hesho waxyaabaha loo baahan yahay weeye sida hoteelada muxuu ahaa waxbarashada iyo muxuu ahaa caafimaadku waa services magaaladeena runtii waxay noqon kartaa meel iibisa muxuu ahaa services ka iibisa shaqooyinka iibisa haday noqon lahayd caafimaad iyo haday noqon lahayd muxuu ahaa waxbarashada haddaan labada xoog moogtay la saaro ee Soomaaliya iyo Geeska Afrika waa laga iibin karaa resources-keena waan leenahay taasi waxay soo jiidanaysaa markaa inay marti badani ay muxuu ahaa magaalada timaado martidaasina waxay u baahan yihiin meel ay degaan
oo ay seexdaan oo ay ku nastaan bay u baahan yihiin marka taasina iyadna marka baahidii kale markaasi muxuu ahaay accommodationkii ama moogtahay guriyeyntii ayay markaasi buuxinaysaa imka waxa ubaale magaaladu moogtahay markii serviceskan uu yar kordhay muxuu ahaay waxbarashadiina ay kordhay caafimaadkiina loo yimaado imka xitaa guri la kiraysta waa laga leeyahay magaalada taasa muxuu ahaay way jirtaa marka waxbaynu baahi baynu buuxinayna hadda jeerna businessku wuxuu ka turjumaa inuu baahi jirta inuu buuxiyo booskeedii inuu buuxiyo dadkuna ay noqdaan entrepreneurs oo aanay isku dayasho aanay noqon dadkeenu waxa weeyaan hadda jeer way isku daydaan wax walba oo iskaga dayanaa hebel baa samee un baa markaas la yiraahdaa laakiin waxa fiican in moogtay la kala bedelo oo hadda baahida jirta la buuxiyo taasa markaas muhiim misalan waxa jirta misalan hadii jaamacad baa markaas sameeyay boor way ka bilaabantay in jaamacad la sameeyo waxa arkaysaa moogtay maanta tuulo walba jaamacad bay doonaysaa waxa laga yaabaa in wadankeena xitaa moogtay iskuuladii sare in jaamacadaha ay ka badanayaan ayaa suuragal marka isku dayashada noocaas oo kale waxay keenaysaa resource badan bay iyo dhinaca loo moogtay wax kale lagu isticmaali lahaa ayay markaas muxuu ahaay ay aad u muxuu ahaay laga yaabaa inay ina moogtay faa'iidadii looga baahnaa aanay keenin ama quality bay hoos u dhacdo dhismo saas oo kale weeyii dadku muxuu ahaay guriyo dhis bay mashquul ku yihiin in guriyo waaweyn la dhiso taas muxuu ahaay oo laga yaabaa inay kaga haboonaan lahayd maanta in loo jiheeyo dhinaca ugu daruurisan oo ah dhinaca cuntada inaynu wixii aynu guryaha ku quudan lahayn ee hoteeladan lagu cuni lahaa ee muxuu ahaay ubadku quudan lahaa ee nafaqada lahayd ee dadku ay moogtay caafimaadkooda noloshooda ay ku jirtay in dhinaca loo jiheeyo aanu aad baan u jeclaan lahaa oo dadku nolosha raadshaan waynu iska noolaan jiray berigii hore ay tahay yani qoyska reer Maxamuud oo isku reer magaaleeyahay Cabdilaahi oo waxbarashada aan wadanka ku maamulay bartaan qaybta wax ka qaatay yani ana farxad labaad bay tahay yani waa aabahayga labaad Cabdilaahi Maxamuud oo waxbarashada Itoobiya ta dugsiga ku jiray la jaamacad qaybta wax ka soo qaatay marka farxad labaad bay tahay saddexaad